asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Maxkamadda sare sida aan idiin sheegayba 9 bilood ayay shaqaysaa. Maanta ayaana taamkoodii uu soo xirmay oo Jimcaha 27ka bisha. Bilaha July iyo Agosto iyo September waa ay nastaan saddexdaasi bilood. Bisha October isniinta u horeysa bisha 10aad isniinta u horeysa ayay shaqadooda bilaabaan ilaa June dhamaadkeeda ayay shaqeeyaan. Marka kiisaska wadanka muranka uu ka dhasho ayaa maxkamadda sare loo gudbiyaa si ay go'aan uga gaarto. Haddaba 6 kiis oo ugu dambeysay oo muran ka taagnaa ayaa maxkamaddu maanta go'aamo ay ka soo saartay. Waa maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka. Marka laba arrin ayaa ugu muhiimsan. Mid muslimiinta ayay quseynaysaa oo ay u wanaagsan tahay, midna Trump ayay u wanaagsan tahay. Tan Trump u wanaagsan haddii aan ku bilaabo, Trump waxaan ognahay markii uu xilka loo dhaariyay kadib bishii labaad inuu soo saaray wareegto isla bishii koobaad baa uu soo saaray wareegto ah in caruurta wadankan ku dhasha oo dadka soo galootiga sharci la'aanta ah ay dhalaan in aan la siinin dhalashada Mareykanka. Dastuurka Mareykanka qodobka 14aad waxaa ku qoran qof kasta oo ciidda Mareykanka xitaa hal lug hadduu kula jiro marka uu dhalanayo inuu si toos ah muwaadin Mareykan yahay uu citizen yahay. Marka Trump arrintaasi waa uu diiday. 22 gobol ayaa dacwada ku gudbay iyo shakhsiyaad sidoo kale haween uur leh oo wadanka sharci darro ku jooga xitaa waa ay ka gudbiyeen. Marka maxkamadda sare waxa ay Trump maanta u xugmisay in amarada ka soo baxa madaxweynaha wareegtooyinka maxkamadaha hoose aysan ka hor imaan karin. Arrintaasi waxaa laga yaabaa xitaa Trump in siyaasadihiisa aysan ka hor imaan karin ayaa la leeyahay. Marka xitaa immigrationka hadda waxyaabo kale inuu soo kordhiyo maadaama amar buuxa ee maxkamadda sare ay siisay oo ay leedahay go'aamada ama wareegtooyinka ka soo baxa madaxweynaha maxkamadaha hoose kama hor imaan karaan. waa tii 22 gobol ay sheegeen inay dacwad ka gudbiyeen. 6 garsoore ayaa ogolaatay, 3na waa ay diideen. Garsooreyaasha ogolaaday waxay kala yihiin Amy Coney Barrett, gudoomiyaha maxkamadda sare, John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brad Kavanaugh iyo sidoo kalena Clarence Thomas. Marka dhammaanba xubnaha muxaafadka waa ay taageereen. Xubnaha sidoo kalena iyaguna conservative-ka maahana liberalka waa ay ka soo horjeesteen sida Sonia Sotomayor, Elena Kagan iyo Ketanji Brown Jackson. Marka intaanba waxaa magacaabay dimuqraadi 3dan, 5 kalena waxaa magacaabay Republican. Marka waa ay taageereen. Marka Trump hadda kadib siyaasadihiisa waxaa la leeyahay maxkamadaha sare kama hor imaan karaan. Qodobka kalena waxa uu yahay caruurta Mareykanka ee iskuulada public ah aada in waalidiintu ay diidi karaan in buugaagta dadkan qoomuluudka ay leeyihiin loo aqriyo, isla markaana sidoo kalena looga sheekeeyo ama la baro galmo ay isku sameeyaan laba qof oo jinsi ah. Waalidiin muslimiina, Christian iyo Jewish ayaa maxkamadda sare u gudbiyay. Marka maxkamadda